شلو waxaan ka baxay Morocco Marrakesh waxaana safar gaaban ama day trip aan u aaday buuraha ugu dheer North Africa ee Atlas Mountain muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu wadaago hadii aad rabto inaad imaato Morocco Marrakesh ama aad joogto hadii aad u baahan tahay inaad day trip aado in waxaad kala kulmi lahayd iyo qaabku uu eg yahay iyo waxyaabaha aad ku arki lahayd intaasba waxaan rabaa inaan kula wadaago soo dhawaada dirkiisu wuxuu yahay ama day trip loo yiri maalintii oo dhan la maqnaana subaxii 9 ayaa waxa laga qaadayaa hotelkaaga waxaan lagu soo celinayaa isla meesha aad joogtid 10 saac iyo bar ilaa 11 saac meelahaas marka safarkan waxaan hogaaminayo oo mas'uul ka ah Mustafa marka baawarka 30 daqiiqo ayuu nasii waday 30 daqiiqo ka bacdi Mustafa wuu na joojiyay wuxuu nagu dejiyay meel mataqaana markaas geel ay joogaan xoogaa aqal yar oo gaaban meel teendha camal ay ka dhisan tahay mees ayuu nagu dejiyay wuxuu noo geliyay mataqaana dharka hidiya dhaqanka ee Marookaanka ka bacdiina meeshas ayaan sawir ku galgalnay ka bacdiina geela ayaan raacnay geela ayuu wuxuu nagu waday muddo 30 daqiiqo ah aan xagaas iyo buuraha Sahara dhinaceeda aan 15 daqiiqo u soconay 15 daqiiqo waan ka soo soconay meesha ayuu nagu soo celiyay ma sha Allah wallahi waxa ay ahayd wax aad u wanaagsan ka bacdiina baawarka ayaan raacnay maraan 20 daqiiqo soo soconay ayaa haddana waxaan joogsanay meel kale meehaas waxay ahayd meel yar oo tuulo qadiimi ah wuxuu noo sheegay Mustafa in tuuladaas ay jirto kun iyo 800 oo sano ka badan ay jirtaa ayuu leeyahay The village is more than 1800 years old, so it's very old. It used not to be like that. It used to be like just caves. People, they were just searching for water. Wherever they find water, they stay like in caves. They see the water stays there for a long time. They see. markuu wuxuu kaloo noo sheegay tuuladan dadka degan علشان هدي أردت إن أتكلم نقطة توكل إن آدم جرع عصب آدم كده سنكرين لكن جريان رجعت على جد استوكل وقت كده سكرتها واحد كل حق ولا ده إن متقنعات كل رجوني وحيسته ما دام ما يلوين كمركز تكتير جريو وين اسكو كهذان وين اسكو رنجي هذان وحياباس هيكجر لكن ما هو حياباس كم جيران كلي جرع عصب آدم يسكرين لكن جريو رنجي جارتوا مرسن كرتها marka xaafad aad qadiimi oo ay ahayd ka bacdina waan ka sii tagnay ka bacdi 15 daqiiqo ayaan sii soconay 15 daqiiqo bacdi waxaan joogsanay meel kale ma sha Allah meel aad u qurux badan ay ahayd waxaan soo dhaweeyay hablo Marookaan ah maamooyin kuwa dhaxaad gabdho yar inta waa isku jireen meesha ayaan ugu soo dhaweeyay meesha ayaan fadhiisanay waan quraacanay quraac ka bacdi waxaan wala casuum meel barnaamij show ah iyo waxyaabo ay markaas ay noo diyaariyeen waxaan aragnaa inay fadhiyaan meesha saddex maamooyin oo dhagax wax ku jiida marka gabar ayaa waxay sameynaysaa wixii noo sharaxaysaa marka waxa ay noo sharaxaysaa waxa ay tahay qaabka saliidda loo dhaliyo noo sharaxaysaa miraha asal saliidaha laga sameeyo ayayna tusinaysaa waxa leedahay mirahana saliidda laga sameeyo mirahaas marka waxa la gelinaa dhagaxaas wax lagu shiidayo ka bacdi saliidii isku bedelayaan shell like this to get the nuts inside see the nuts okay and the shell used for animals eating this one the shell and second step we broke the nut again by small stone like this so this one used for fire like wood this one for fire like wood and from this small almond we make the oil so sometimes one almond inside sometimes 2 almond ما شاء الله aad ayaan loo soo dhaweeyay waxa turbaanana loo garaacay anti-clockwise so yeah that's brilliant friendly ah oo aad midqana ugu jifuran ayaa meesha nagu soo dhaweeyay marka
xogaa meesha waxa aan joognay 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ayaan joognay kabacdina waa aan ka soo tagnay 15 daqiiqo kabacdi marka Mustafa wuxuu noo sheegay inaan baawarka degayno aanan aadayno xaafadiisa asaga xaafadiisa wuxuu noo sheegay in buuraha ku dhex taalo buuraha Atlas waxaana loo lugay doonaa 45 daqiiqo ayuu yiri tan waxaan soo gaarnay buuraha Atlas oo Morocco ku yaalo waxa way buuraha waxa ku taala buurta ugu weyn meeshan waxaan ugu sheegay buuro aad u weyn ku yaalaan Atlas waliba waxa aan ku taa dabcan waxa buurta Afrika ugu weyn buuraha Afrika ugu weyn waa malayna soo marka koleeto buuraha Atlas aan imaanay waa buuro aad u weyn marka haykina waxaan sameeynaa hal saac iyo bar adinka dhawaaqama ma sha Allah kabacdi waa qadeynayna kabacdi meel kale waterfall aan tagaynaa marka hadda waxaan ku raaxaysanaynaa buuraha Atlas kusoo dhawaada Morocco iyo buuraha Atlas wallahi sidan wad ognahay buuro in la koro ama buuro in dhex lugeeyo ma sahlana qofkii safarkaas imaan rabo waa inuu ugu soo talagalaa xogaa fanaanad yar oo culus inuu soo qaato maadaama xogaa si kasto cimilada magaalada ay u kulushahay buuruhu xogaa yar waa ay qabow yihiin waxaana kaloo aad ku soo talagelaysaa inaad soo qaadato kaba aad u adag oo dhulka cishan karin aad soo qaadatid maadaama dhulka dhagaxa uu yahay waan lagu taraarixi karaa meelaha la marayana waa meel aad halis u ah oo dhulkaba haddii hal lugjag ay ku dhacdo aad ka dhici kartid laakiin run ahaantii waa ay u qalantaa waxyaabahaas oo dhan in loo sameeyo waayo calashan viewga hadda aragtid si u qurux badan tahay badanaa dadka meeshan soo aado waxa ay ka wada imaadaan magaalooyin marka waan ognahay magaalooyinka inay aad u buuq badan yihiin ay saxmad badan yihiin marka waa ay fiican tahay qofkan caafimaad ahaan waa ay u fiican tahay in meel quiet uu tago oo waxba aan ka dhawaaqayn marka socodkaas wuxuu ahaa socod aad u qurux badan dhawaaqa shimbiraha waxyaabaha dabiiciga annaka socodkeena aan socono bisan maqlayn codkeena xataa dadku hoos u hadlaayeen marka waxa ay ahayd calashan in wax mataqaana naftu ay aad ugu baahneed safartakii daqiiqo aan sii socono xataa ma aanan dareemin marka waxaad arkaysaa waxyaabo aad u qurux badan oo indhuhu markaas ay ku maqsuudayaan usually marka magaalada joogto waxyaabaas ma aan aragno marka naftu way u baahan tahay markaas waa ay ku raaxaysanaysaa marka socod badan kabacdi waxaan soo gaarnay xaafadii Mustafa qofka ugu horeeyay ku xiga anigoo ahay Mustafa ay hormaray soo gal ayuu yiri waxaan aad wax ma duuban karaan ku yiri maadaama dumar iyo habla ay joogeen xaafadda wuxuu yiri dhimana soo dhawaa bas aan gudaha sii galaya waxaan arkay waxa ay dhaafay Mustafa hooyadiis nasiib uma aan yeelan in mataqaana markaas aan sabarano ama aan salaamo hore ayaan u gudbay oo wuxuu ii sheegay qaybta lagu qadeynaa inay kor tahay markaan kor aan soo fulo waxaan imaaday meeshii uu nagu casuumay oo la fadhiisan lahaay علشان أمبلي ما آمني كرتيت سي أقرح بانتا ماشاس ما إصداها ماشان ميلا ميت أيات شعيبة هراد وأركتي ما آمن سنة علشان بورو سيد أقرح بديهين سي إسكو دودل ساريهين iyo meeshan ugu casuumo oo mataqaana laga sameeyay geeda laga sameeyay mukulaala ayaa meesha maray waa meel aad ku aad u ah shanqar xayawaan mataqaana cood shimbireed waxa ahayn ma maqleydid aad ay ku aad u tahay meesha marka meeshii ayaan wada fadhiisanay waan wada sheekeysanay Mustafa Sheekh ayuu noo keenay dabcan Morocco ay maatan waxaad ku arki doontaa meel kasto sheekh ka dalbato sheekh marka lagu keeno sheekh adiga ma shubanaysid sheekh waxa ay sameynayaan qaab ay u shubaanay jiro ay ka ku shubayo kor inta jelmada u qaadaan ay sheekh kor ka soo deynayaan عشان interesting waxaan isku dayay aniga marar badan maadaama aan arkay sheekh sis loo shubaa xaarniyo Mustafa anigana markii aan isku dayo laba koob sheekh aan isku dayay inkastoo عشان ماشي أوجي مصطفى أنا جاي كيرن لكن حويا مال حوان جاي وضدك مركز ناس السعودي أجنبي جاي عشان اللي يابكن قطي إن أنت أصبح أنا وأنا سمايو وكمان ماشي أيام كل شيء سنة حلي غذاء يا لجاري غذاء أنا كان وحنقول عسومي هذا تقانين نذكر مروكو كسكس يوم حلا تنجي ورشيم ماذا متقنا مركز كلتر كويهنا ما يكفانا راشي كان نقول عزومي ماشي أيام فردي السنة وأنا أنتيني وأنا عبيتانيني ما شاء الله عندي مركان عنا كبعدي معانا هذا أنا لو كان معانك أيام هنا ماشي كل شيء كسنة مركز الشيء كدير كبعدي وحنا الشيء إن آدي دونه ميل دبيعي أو بيد دبيعي سوديني سو أو بوراك ودحتى لأن ونجين دونه هالكاسنا عن صورك سوق الجليد دونه وحنا الشيء ماش إن لوسي صعد دونه أيضا أنا صدق دقيقة صعد كلا لوسي صعنا مركز وأنا بحناي وأنا مع سلاميني فاميلي وأنا هذا نقناي صعد دير كبعدي وحنا تقناي إن بي ووترفول كأيان تقناي ميل يرو آد وقروح بدن إن ووترفول كم أهان ميل آد ودير معه لكن أنا
toban qofood oo aniga lasdul saar علشان xogaa yar aad u sareysaa aad maahan laakiin waa wax yar oo aad u qurux badan meel yar oo loogu talagalay waaye meesha ayaan tagnay sawiro ayaan ku galgalnay marka waxaa jiro meelaha biyaha soo deynayo buuraha xogaa waa kala duruqsan yihiin marka meel dhaxoo dadku waxaan arkay ay istaagayaan naag cadaan istaagay ayaan arkay sawiro ku galgalay kabacdina geesinimo ayaan iska baaray waxaan sameeyay ana inaan baxo in mataqaana meesha dhax inta istaagan sawir ku galo inta sirta dhaxda istaagaysid meel waxaa maraysaa laba tiir oo la isku xiray aad risk u tahay in iska ilaalisid marka waxaan sameeyay darbiga ayaan qabsaday waan istaagay sawiro ayaan ku galgalay kabacdina waan ka soo baxay si nabad ah marka xoogaan meesha ku fadhiisanay xoogaan ku sheekeysanay taariikhayaashii wixii ayuu nooga sheekeeyay kabacdina waxaa la gaaray 10 saac iyo bar safarkeenina waa noo dhamaaday فيديوغينا halkaas ayuu ku egyahay fiidiyogan fiidiyo lamid ah inta ku kulmi doono waa anigoo Sheekh Cabdi Samar waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo maca salaama peace